xiriirka kubadda cagta Ingiriiska FA-ga ayaa la ganaaxay 70,000 oo lacagta Swiss-ka ah, sidoo kale u dhiganta 50,000 oo lacagta pound-ka ah kadib markii Dele Alli, Eric Dier iyo Raheem Sterling ay ku soo labisteen ama ay soo xirteen sigsaan aan la fasaxin koobka adduunka. ciyaartoyda ayaa laga ganaaxay ama looga digay inay sigsaanta ku muujiyaan waxyaabo gaar ah oo ay wax ku taageerayaan. FIFA ayaana diiday, balse FIFA waxay aragtay ama ay daabatay kulamo badan oo Dele Alli, Eric Dier iyo Raheem Sterling ku labisan sigsaan ay ku muujinayaan hubigooda ama waxyaabaha ay jecel yihiin. FIFA waxay FA-ga u gudbisay ganaaxaasi iyagoo aqbalay, ugu dambeynna waxaa la duldhigay ganaax 50,000 ah. FIFA dhowr mar ay u sheegtay ciyaartoyda xulka qaranka dalka Ingiriiska inay joojiyaan waxyaabaha gaarka ah ee ku soo bandhigayaan koobka ama kulamada, ha noqdaan taageerid xul, ha noqdo taageerid qoys, ha noqdo taageerida waxyaabaha ay hubigooda tahay. sababtoo ah Raheem Sterling ayaa hub ama qori ku soo sawirtay lugtiisa ka hor inta uusan bilaaban koobka adduunka, waana laga diiday. guddiga anshaxa ee qaabilsan koobka adduunka FIFA ayaa soo rogay go'aankaasi, iyadoo hadda xulka qaranka dalka Ingiriiska markii ay hareen FA-goodina laga qaaday lacag dhan 50,000 oo lacagta pound-ka ah.